Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Daawadayaal, halkani waa warbaahinta halbeega wararka. waxaa ku soo dhawaataan warka warbaahinta. qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya farmaajo oo xilkii ka qaaday Axmed Cali Daahir, xeeralihii qaranka magacaabayna xeeralyo cusub. xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta loo diiday inay ka baxdo garoonka magaalada Muqdisho waqtiga ay dhacayso doorashada dowlad goboleedka Galmudug oo la shaaciyay. wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha ammaanka oo loogu yeeray maalinta Bariitaanka inay u yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. dil naxdin leh oo Muqdisho loo geystay darawal kaxeynaya mooto bajaaj iyo ehelada wiilkaasi oo cadaalad dalbaday. qodobada ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 bisha 11 November 2019. u diyaar garooba saaxiibayaal faafahinta qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. janalkan subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkan saaxiibayaal sii share gareeya si uu gaaro saaxiibo fara badan oo aanan janalkan u ruknayn. aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu xilkiga qaaday Axmed Cali Daahir, xeeralyo cusub ayuu magacaabay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa u magacaabay garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud xilka xeeralyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana xilqaas ku sameeyay xeeralyihii guud ee qaranka Axmed Cali Daahir. magacaabistan ayaa timiday soo jeedinta ayaa ku timid soo jeedintii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed. baahida loo qabo in la bedelo xeeralyaha qaranka waxaana madaxweynuhu qaatay in guud ahaanba Axmed Cali Daahir meesha laga saaro. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa faray xukuumadda una jeediyay hay'adaha sharci dejinta inay soo dhammaystiraan golaha adeeg garsoorka laguna waafajiyo dastuurka ku-meelgaarka iyo xeerka khuseeya dhismaha golaha si loo dhammaystiro dib u habeynta garsoorka iyo hanaanka cadaaladda ee dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay xeeralyaha guud ee qaranka ee la magacaabay inuu waajibaadkiisa shaqo u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucaha dalka u yaala, waafaqsanna sharciga Soomaaliya u degsan. madaxweynahaas ayaa sidoo kale waxa uu ugu mahadceliyay xeeralyihii qaranka Axmed Cali Daahir shaqadii uu soo qabtay iyo dadaaladii kala duwan ee dalka Soomaaliya uu soo galay. xilqaystan uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya uu wajahayo dacwad kala dhaxaysa dowladda Kenya taasoo ay muranka badda ee u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya. siyaasiyiin badan ayaa waxa ay ka falcelinayaan xilqaystan lagu sameeyay Axmed Cali Daahir, waxaana dadka qaar ay leeyihiin waxaa ka dambaysa siyaasado kale oo aan ilaa hadda la ogeyn cidda wada. waxaase xusid mudan in maalmo uun ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu tagay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, kulamo kala duwan ula qaatay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta lagana hadlay arrimaha la xiriira badda. waxaase dad badan ay isweydiinayaan su'aalahay miyuu mudnaa Axmed Cali Daahir in xilka la qaado hadda mise waxa uu mudnaa in shaqadiisa uu sii wato. xildhibaan Daleys Xasan Aadan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxaa loo diiday in ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulle Cuthmaan Aadan Cadde ka baxdo. xildhibaan Daleys Xasan Aadan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cuthmaan Aadan Cadde iyadoo ku sii jeeday degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ay ka soo jeedo. xildhibaanada oo ka hadashay kulankii baarlamaanka ayaa waxay sheegtay in markii saaka ay tagtay garoonka diyaaradaha ay doonayso inay diyaarad ka raacdo lagu yiri ma bixi kartid. hay'adaha ammaanka gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayay sheegtay in ay is-horistaag ku samaysay. waxaan rabaa inaan halkan ka sheego hawl yar oo ay qabsatay shalay. waxaa fasax geystay guddoonka in muddo 10 cisho oo aan maqnaan doono oo aan aadi doono deegaan doorashadeeda degmada Luuq ee gobolka Gedo. saakay 1 saac markii aan tagay garoonka oo la marayo 5 saac ayaa la yiri kama bixi kartid airportka. waxaa ku haystay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya
ayay tiri xildhibaanad Dalays oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanada ayaa guddoonka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in kiiskaasi loogu diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho la soo cadeeyo, waxaana la sheegay arrintaas ka dambeysay waa si ay sheegtay xildhibaanad Dalays hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee qaranka Soomaaliya. Xogeynta golaha shacabka ayaa go'aamisay in ajandaha kulanka lagu soo daro is-hortaaggan lagu sameeyay safarka xildhibaanada ka tirsanaaday golaha shacabka Soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay soo tarayay is-hortaageeda ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameynayaan siyaasiyiinta ka dhoofaya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, iyada oo la xasuusto in sidaan oo kale hortaag lagu sameeyay diyaarad ee garoonka magaalada Muqdisho ka raaci lahaayeen madaxweynayaasha hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo dacwadii ay u gudbiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya toddobaadkii hore arrintaana xal laga gaaray. dad badan ayaa waxay isweydiinayaan maxaa soo celceliya in hortaag lagu sameeyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan xukuumadda haatan jirta ee nabad iyo nolol la magac baxday. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo dhammaan hay'adaha ka shaqeeya amniga ayaa waxaa la faray maalinta beritahay inay hortagaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa waxaa qoraal ka soo baxay xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikirin Xaashi Buux loogu baaqay in wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale in maalinta beritahay taariikhdu tahay 26 November inuu hor yimaado xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. waxaa sidaas darteed waxaa sidoo kale arrintaasi la faray in wasiirka hay'adaha ka shaqeeya ayaguna ay yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka hortooda. waxaa la sheegay in la weydiin doono su'aalo la xiriira shaqadooda loo idmaday oo dhanka ammaanka ay waxyaabihii ay qabteen maalmihii la soo dhaafay. su-aasha ayay tahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya miyuu berito xaadiri doonaa ajiibina doonaa go'aankani ama farintan kaga timiday golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa la soo saaray waqtiga rasmiga ah oo ay dhacayso doorashada dowlad goboleedka Galmudug xilli maalmihii la soo dhaafay hakad ay ku jirtay. xaaladda Galmudugna waxaa lagu soo waramayaa in haatan ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn. isqabqabsigii u dhaxeeyay maamulka Ahlusunna wal Jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in uu sidiisii u taagan yahay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoon xalin ayaa waxaa la soo saaray habraaca doorashada maamulka dowlad goboleedka Galmudug. guddiga farsamada ee maamul sameynta Galmudug ayaa maanta waxay soo saareen jadwalka doorashada maamulka dowlad goboleedka Galmudug ee xulista baarlamaanka, doorashada guddoonka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. guddigan oo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaaciyeen inay bilaaban doonto xulista xildhibaanada cusub ee Galmudug inta u dhaxaysa 29 bisha November, halka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisuna ay dhacayso 17 ilaa iyo 23 bisha December ee soo socota. 25 ayaa la sheegayaa in odayaasha xulistooda ay bilaaban doonto. xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug xilli ka raadinaya ayaa waxaa la sheegayaa inay iska xaadiriyeen magaalada Dhuusamareeb oo xarunta maamulka Galmudug ah. waxaase loogeyn qaabka loo wajihi doono doorasho Galmudug loo dhan yahay xilli la wada ogsoon yahay inuu jiro khilaaf xoogan ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna wal Jamaaca, kaasi oo ka taagan qaabka loo maareynayo ama loo dhisayo Galmudug loo dhan yahay. beelaha qaar ayaa waxaa la sheegayaa in ay qabaan tabashooyin ku aadan in la duudsiyo xuquuqdii halkaasi ay ku lahaayeen. guud ahaan saaxiibayaal warkii ka daawanaysiin warbaahinta Halbeega wararka waa naga intaas nabadgelyo.